waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu caleema saaray suldaanka beesha Anaasta Amba Ibraha Suldaan Ibrahim Cabdi Xuseen munaasabadani lagu caleema saaray suldaankani oo maanta lagu qabtay hotel Imperial ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed ka tirsan beelaha uu ka soo jeedo suldaanku dhalinyaro tiro badan odayaal iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay hal doolbar khad jaamac xirsi oo ka hadlay munaasabadani ayaa soo dhaweeyay Suldaan Ibrahim Cabdi Xuseen waxaanu ugu baaqay qaybaha kala duwan ee beeshaasi inay midnimada ilaaliyaan waxaana hadaladiisi kamid ahaa suldaanka caleema saarayo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryay midnimada waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay sulaadiintii cuqaashi waxgaradkii iyo odayaashii madashani ka soo qayb galay iyagoo dhammaantood buu hanbaliyay suldaanka cusub ee ay soo doorteen beesha Ibruhu waxaanay sheegeen inay garib istaagi doonaan suldaankani cusub waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan suldaanka caleema saaray intii mas'uuliyad culus baa saaray adduunka aakhirada ay isweydiin doono waxa leenahay suldaan awl culus baa ku taala وجيه فربنا حماسا هديت هاي مشاكلك أما قولها بيش تحدينا يا هديت هاي مشاكل كفود يا مجتمعاتك لين قاعد طبعا أي على مسارنا يسوع أو حقيقي سلطان مالتا اليوم كالعرقتية يوم متى كالبيرة أو أنس بيرة هاي اليوم إيه جرام وحلا إلى جبويه وحجبويه إلى مكتة بيرك الدوام بارو نهاية إن أنا هالكن يسكوني مالو إذا كان نقاله يمد فرسوما كلا هذانا إن إمانته مناسبتنا يسكون خايف بالمسوا على مسافة سلطان كيبرو وأمين الرئيس gabagabadii waxaa munaasabadani ka hadlay suldaanka cusub ee la caleema saarayay Suldaan Ibrahim Cabdi Xuseen isagoo madashani ka ballan qaaday inuu si cadaalad ah ugu adeegi doono guud ahaanba beeshaasi soo dooratay waxaana suldaanka hadaladiisi kamid ahaa sida tan waxaan ka salaamayaa dadkii soo abaabulay afrada aad iyo aad u qurux badan ee maanta ka dhacayso Imperial caleemasaarkii suldaanimadayda halkaasina dhibaatadiisu iska leeyahay barwaaqadiisana uu iska leeyahay insha allahu tacaala ilaahay ducadiina waa yaqbalayaa suldaan cadaali ilaahay iga dhigisay qaadir raxmaani waxaa halkan aan ka sheegayaa marka loo soo noqdo beesha annaasiinta ama loo yaqaano Ibraah أما لو يقال راشد محمد بن حنيف وأمة قرر وولي تحتي وأمة الوفع وين دخل إلى هذا الصومالي اللي ما أمة قرر وما طلبت معه